قيام. Me too حتى إن أخاخت تمها حتى يرى ويستاجن. I والله love her وان شعلها. kusoo dhawaada mar kaleento Naaji Show. Anigana waa Cali Naaji. Caawa waxaan sameynaynaa barnaamijka ahay How Somali Ayu. Marti aad qaali ah ayaa noo joogto. Soo dhawaaw Ifraax. وأنا علي ناجي أدو ما سنتوالا. Hadaa mudan Ifraax waa gabar Soomaaliyeed ku nool Mareykanka waana macallimad science dhig. Sidoo kale Ifraax waa gabar atrisha kana qayb qaadatay filimkii ama riwaayadii Jahwareer. Ifraax barnaamijka la socota amleena. برنامج كون لسه وان دعوة episode يال كلا it's a wonderful show. waa mahadsan tahay wuxuu ka kooban yahay 10 su'aal su'aal kastana waxaa ku helaysaa 10 dhibcood haddaad sax ugu jawaabto diyaar mu tahay ديار بانهاي. okay su'aasha ugu horeysa waxa waaye taariikh sanadka ahay 1977 waxaa dhacay wax Soomaalida qoys kasta si toos ama si kale u saameysay sanadkaas caan muxuu ku caan baxay ma noo sheegi kartaa So sanadkii 1977 so yes 77 yes 77 dagaal baa dhex maray Soomaaliya iyo Ethiopia. wow well done su'aashaas si sax ah u jawaabtay waxa ugu muhiimsanay ama oo si fiican loo yaqaano wuxuu ahaa dagaalka dhex maray Soomaaliya iyo Ethiopia taas waa runta maxaa kaloo kala socotaa dagaalkaas dagaalkaas Soomaaliya waxay damcaysay inay soo ceshato adiga dhulka Soomaalida ay degan yihiin oo haddadan kelinka shanaad Soomaaliya Ethiopia region صح Soomaaliya inay soo ceshatay rabtay wax dagaalku wuxuu bilowday bilowgii July ilaa March sanadka xigay 78 uu socday Soomaaliya waxaa ka eexday wadamadii Soviet Unionka hoos imaanayeen Ruushka Cuba iyo Yemen koonfureed oo maleena marka gaar ahaan ciidamada Kubaana soo dagaalameen Soomaaliya way ku jabtay dagaalka dib ay soo daba gurteen dagaalkii meesha Soomaaliya loogu guuleystay annaga hadda dagaal ma promote gareynayna mana xayeysiinayno just waxaan rabnaa inay taariikhda ogaataan waa mahadsan tahay 10 aan ku heshay meeshaasiti su'aashaada kalentana waxa waaye siyaasad waaye siyaasadda maxaa kala socotaa Soomaaliya siyaasadda Soomaali baan ahay waa la socdaa kasto but you know siyaasadda madax xanuun you know mar qaarkood waxaan dhahay iga daa qof kasta weydiiso siyaasadda Soomaaliya wuxuu leeyahay madax xanuun siyaasadana saas ah maaragtay meel kasta ma sahlano wadan in la maamulo shirkad ama gurigaaga yar ama mar madax kugu xanuunay marka wadan ina maamusho way ka sii daran tahay laakiin waxa loo baahan yahay qof kasta Soomaali ah inuu siyaasadda qayb kala socdo sidoo u saxi lahay siyaasiyiinta waxaan ku weydiinaa nidaamka Soomaaliya lagu soo xulo baarlamaanka federaalka nidaamkaas magaciisa ma taqaanaa oo baarlamaanka lagu soo xulo baarlamaanka lagu soo xulaa dadka qaar aad u eedeeyaan systemkaas nidaamkaas waa formula okay so formula lagu soo xulo baarlamaanka 4.5 yes waa saxda 4.5 ama 4.5 systemkaas wuxuu u shaqeeyaa afar qabiilo waaweyn iyo inta kaleento afarta qabiilo waaweyn waxay helaysaa qayb libaax leh boos buuxda wasiirada ugu fiican meeshaas wadanka xilalka ugu wanaagsan inta kaleentana nuskooda helayaan inta ka soo harto mar kale si fiican uga hadli doonaa 4.5 oo markay soo bilaabatay iyo dhibaatada ay leedahay iyo dadka ku faa'iiday waa mahadsan tahay 20 ku haystaa well done waa ka baxsatay Ifraax wow aad ugu faraxsanahay inaad qayb gasho siyaasadda la socotaa maxaa leedahay lama socdo waa yar waa la socdaa hadda you know waa khasab inaan la socdo but still like I said horey soo sheegay madax xanuun okay maadaama macallimad science tahay English wax ku baratay waa ogahay marka science Soomaaliyan kugu weydiinaya English kugu weydiinaa asigoo Soomaaliyan ay sheegtaan jeclaan lahay haye waan isku dayaa okay waxaa noo sheegtaa Soomaali wax lagu dhaho fluid ama liquid wax lagu dhaho fluid ama liquid like biyo camala yeah liquid waa biyo camal laakiin kulligood maxaa la isku dhahaa because liquid saliida soo galayso waxa soo galay caanihi biyaha soo galay marka kulligood liquid way marka wax daa ka bilowdo way hore mu maqalna laga yaabaa
no ma because maqlin kulligood wax duudayo waaye marka magaca sayniska loo yaqaan waa dareere la isku dhahaa dareere dareere ka imaada macnaha way dareerayaan marka dareeraa la isku dhahaa kulligooda waxaa soo galaya biyihii caanihii saliiddii waxaasoo dhan waa dareere okay wow okay Hore uma sayniska saas maqlin. waay okay hadda adiga iyo dadka hore u maqlin way baranayaan dareeraa la lahaa dareere marka waa mahadsan tahay meeshaas 20 ku haystaa su-aashaas kama jawaabin social media aadaynaa youtuber caana aadaynaa oo kobol ah gabadhi wiil isqabo mareeg kula nool sawirkaana arkayso ma taqaanaa yes waan garanayaa horey waan u arkay laakiin magacooda way iga dhumeen I like them waxay haystaan like personality fiican way sheekeeyaan waa funny you know yes aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad aad wiilka magaciisii waxa waaye magac king oo soomaali wax la raacsiiyey boqorka Soomaaliya boqorka Soomaalida boqorka wuu jeclaan lahaa boqorka soomaalida la dhaho boqorka Soomaalida la dhaho jeclaan lahaa samaha wuu jeclaan lahaa wiilkan waxaa la dhahaa boqorka gambiska boqorka gambiska boqor gambiska caan xaaskiisa waxaa la gabarey maayo ama magaceeda saxda waxaa la nawaal asina Nawal yes magaceeda ayada like it was just one haystay laakiin gabar maayo ma taqaana wax laga wado gabar maayo wax laga wado ma taqaana gabar maayo maya maxaa la dhahaa mermaid oh wow yeah koonfur saasaa laga dhahaa okay gabadha badda ka soo baxda oo fairytale-ka ma fahan gabar maayo okay gabar maayo maayo luqadda koonfurka waa badda gabarna waa taqaana waa gabadhii badda gabadhi badda maasha allah marka okay waa ka gudbaynaa still waxaa haysataa 20 haysataa hope sawirkan kale khasab waa inaad sheegtid okay sinayaa waa sheegaysaa qof caan waa fanaan fanaaniinta hore maasha allah soomaalida badankooda way jecel yihiin badankooda kulligooda way jecel yihiin kutusinaya it is this is my favorite allah waan jeclahay Hibanura wow well done I love Hibanura qof aan jeclan ma jiro Hibanura she's so because wonderful Hibanura bala magac maasha allah Hibanura ma noo sheegi kartaa heesay qaado laaleysa baa ka ahaatay laaleysa any hees ayada qaado waxir ku dhufo oh no maxay ahayd laaleysa sabab kale hamoodine barabi waa taqaan laakiin ma garanayo inaan la dhaho like luqalina heestaas la dhaho kalgacaylka waa qani laakiin heestaasna waan ka garanayaa kalgacaylka waa qani wow maanaha heesii hore isku fiicantiin adiga iyo fanka hore yes waan jeclahay waa mahadsan tahay ifraax waxaa meesha ku haysataa 30 saddex su-aalood baa ka jawaabtay waxaan aadaynaa su-aasha kaleento oo ah ifraax geedkan ama bahashan shaygan Soomaaliya baadiyaha aad loo isticmaalaa muxuu yahay magaciisa oh my god waan garanayaa caanaha lagu qaataa soo maaha caanaha lagu qaataa yes magaciisa muxuu ahaa DH oo ku bilowdaa BH ah dha wiiga baqayay waka dhiil eedaday hadday arki lahayd say igu xanaaqi lahayd inaan garan waayo dhiil caanaha lagu qaataa qof kasta wuu yaqaanaa hadda waxaan tegaynaa my favorite kana aad ugu jeclaa waa xayawaana sa isku tihiin waa iska fiicannahay isku fiicantihiin okay all right kan Englishan giraffe lagu yaqaanaa marka Soomaali muxuu yahay waa qoor dheer yahay Geri wow kama kastay maasha Allah Geri hada wallahi billahi safari Kenya ku adaa malayna safariga waa jeclahay horta waa ku aaday Kenya meeshan haddaan joogana zoo
ها جريا سو أركتان good well done أوكي أفرتنا مش اسكو هستا أفرتنا مش اسكو هستا waxaan ugu gudbaynaa su-aashaada kaleento waxa waaye maxaa la dhahaa maamaah waaye I hope inaa sheegtid kana maamaah okay maamaada waxa waaye dhagar qabe dhulka u dhaqdhaqaaqa dhagar qaba ah dhagar qabe dhulka u dhaqdhaqaaqa dhagar qaba waa taqaana ma saaran soo ma aha may dhagar waxa waaye qof dhagar galay waa qof dembi galay crime oh so dhagar galay maxaa la yiri dhagar qabe dhulka u dhaqdhaqaaqa marka macnihiisina ay sheegtaa rabaa dhagar qabe dhulka u dhaqdhaqaaqo qof guilty ah maxaa la yiraahdaa qof guilty leh haye maxaa la yiraahdaa dhulka u dhaqdhaqaaqo qof dambiile ah qof dambiile markasta like way ka muuqataa oo markasta maxaa la yiraahdaa waa la og yahay asiga muxuu dareemayaa taasaa muhiima asaga wuxuu dareemayaa inuu like dhulka labada lugood uu ku haynin oo ay adduunka la socdo laakiin dadka markay arkaan wuxuu dareemayaa cabsi wuxuu isleeyahay waa lagu ogyahay yes well done waa ka baxsatay meeshaas waxaa ku haysataa 50 wow boqolkiiba konton Soomaali tahay marka dhagar qabe dhulka u dhaqdhaqaaqa macnaha shaki uu ku nool yahay nolol oo aan comfortable ahayn erayga dhada ka saxsan macnaha happy ma okay well done happy ma waxaan aadaynaa tan kaleento ifraax waxaa sheegtaa labada webi ee Soomaaliya marta magacyadooda Juba iyo Shabeelle wow well done waa ka baxsatay meeshaas waxaa ku haystaa 60% haystaa wow okay waxaan ka ma taqaanaa magaalooyin Shabeelle magaalooyinka waro oo webiga ama Juba ma noo sheegi kartaa magaalooyinka mid leh macnaha dhib waxba kuma helaysid laakiin kuma qaladna ma hadaa sheegtid I don't know beledweyn Shabeelle mara sax waay beledweyn oo mara Johor oo mara Balcad oo mara Afgoy oo mara Juba wuxuu mara Baardheere Bo'aale Jamaam iyo Jilib okay Juba markaas marka labadood waxay ka soo bilowdaan Ethiopia ka soo bilowdaan Soomaaliya ku dhamaadaan adiga area Goobweyn ay ku dhamaadaan labadood Goobweyn meel u dhow marka labadood ku dhamaadaan waldan lixdana ku haysta waxaan aadaynaa music aan ku daaraa Zainab Ciga qabrigii jacaylka well done waa ka baxsatay qabrigii jacaylka Zainab Ciga maasha Allah qiira qabato codkeeda markaan maqla aadan u jeclahay xataa dhaqaaqda timaha xataa yara way istaageen wallahi I love her waan jeclahay oh my god ana London inoo joogtaa markasta aragnaa oh my goodness waa inaan London imaadaha daniyo Zainab Ciga waxay ka mid tahay fanaaniinta ka yimid Cadan Hadraawi ayada Xudeydi waxay ka imaadeen Cadan fanka Soomaalida waxay ku soo biiriyeen wax aan la maleysan karin waxay ku biirtay kooxdii folklore dancing ama hidaaya dhaqanka ka bacdina fanaanada ay noqotay qabriga jaceelkana riwaayadaas ayay ku jirtay well done waa ka baxsatay ifraax aada u mahadsan tahay waxaad ka jawaabtay 70 ayaa boqolkiiba 70 ka jawaabtay macnaheedu waxa waa 7 su'aal ka jawaabtay aad aan ugu faraxsanahay caawa inaad ka soo qayb gasho barnaamijka aniga sidoo kale mahadsanid walaalo adaa mudan barnaamijkeena caawa halkaan uu ku eg yahay waa mahadsantihiin u sheeg bay ifraax maxay sameynayaan subscribe like share dadkoo dhan la wadaaga yes ومستنى ناجي شو كورن يا هاو سومالي أيو برنامج كانت aad baan ooga helay run ahaantii wax badan baa laga baranayaa entertaining waaya aad baan ooga helay bashal waay funky dhaqankii luqadii dhan ku jirto inta dhan la isku soo koobayo waa masta barnaamijkeena meesha ku ekiya waxaad keentay 70 waa inoo mar kale dadka ku xiran Naaji Show iyo House Somali ayo waa maasantiin ciao